Kundi la kwanza ni kundi la Kenya Police inaongozwa na Sergeant Yusuf Elme. Ismaamulkani Mandera ayaa maanta Kenyaanka kala qayb gashay xuska maalinta halyeeyada dalka ee loo yaqaan Mashujaa Day. Maalintan ayaa ah maalin lagu xuso halyeeyadii u soo halgamay dalkani Kenya. Munaasabadaas ayaa waxaa lagu qabtay garoonka weyn ee Moi Stadium ee magaalada Tani Mandera. Munaasabadaas ayaa waxaa ka soo qayb galay madax kala duwan kaas uu horkacayo barasabka Ismaamulkani Mandera Ali Ibrahim Roba iyo dhigiisa dawladda dhexe u matala Ismaamulkani Mr. Onesmus Kiada. Shacabka Ismaamulkani Mandera ayaa soo dhaafiyay garoonka Moi Stadium ayagoo raacaya awaamiirta ay soo jeedisay wasaaradda caafimaadka ee looga hortagayo cudurka coronavirus kuwaas oo heerkulkooda lagu baarayay ilinka hore ee xaruntaasi waxayna shacabka ugu deeqeen afxirka iyo wiliba gacmo dhaqa loo yaqaan sanitizer-ga sidoo kale ammaanka guud ahaan Ismaamulkani Mandera ayaa si weyn loo adkeeyay inta ay socotay munaasabada xuska maalinta halyeeyada dalka shacabka Ismaamulkani Mandera oo ka soo qayb galay xuskan ayaan la dhaxmarnay mikrofoonka idaacadda Sahan FM waxayna noogu warbixiyeen dareenkooda ku aadan maalintan iyo waliba halyeeyagooda bal magacaaga iyo sidaad u aragta xafladan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعي ومحمود عمر وكم مقع دير شابو ما شاء الله حفلة ما أنت أدبر لود بلدقة مقالة منديرة ما شاء الله شعب السوق جرا ماموين اللي يرى وذيال وحجرت بروفيشنالز لنا سويمت علماء وحكست له ما شاء الله نظام كحد هل كان لود جي ونظام أد لوجو فرحه دولة اللي بدر national government يو county government اللي ما كل هرين قعم وين بيك أي كقاتين وحي كقاتين نظامنتا جرونكا إدل رانكستا نظافة سيد متقنا كوفيد 19 containment measures كا الباب كمركل لقى صو قلايا وحن أركهايا دتك أول بارايو أو temperature أول إيجايو dadkii oo mataqana qofkii aan mask wadanin mask la siinayo aan arkaya ma sha Allah kala fogaanshaha oo aad loo ilaalinayo hadana si dadka ay isugu dhawaanin maskaga la wato kulli waxay tusinaysaa ma sha Allah in aad looga qayb qaatay fulinta xafladan aniga Mashujaa Day ma sha Allah halyeeyayga horta waa waalidiintay oo ay dhashay aabahii iyo hooyaday baba Umar iyo hooyo muslimo odiyo ما شاء الله they are my شجاع today ما شاء الله ماشان والله وآد متقنا ما أنت حسد أي أوكي وتهي مقعي ومحمد نور كم مقعد إرجاس محمد جاس صور دو سدا وأركت أمانتا حفلة دان لو قد بالدقة مالنت هلية قرنكا أرتوانيو مالنتا ومالن نجوين هدانا هاي كينيانكا مالن آد نجوين واي مالن تي حرية الله هلاي واي ومحوها عبياشن أصول دينتين أصول دجالمين ما أنت واحد فرحتنا أن كنا لنا هيدت بكدم بيدت بقول دينتي تذكي قول دينتي وحيو كنت لقالين جيل بجيل ككسي دم بي إني فرحت كنا ولادان وأنا نقوم هاد علينا واتها أديك أهان قاصة هليجا جياوي أنا هليجي جوا أبي واتها مركا أنك صوتك ندينا عايو دتك ما أنتو حكمت فرصة ويا شيء إني كسر مقدان قفافك هراء جرونكا وحتكمل دتك كسر بندقي روايدهم كل دوبان جرونكا بل درينكا والله محوها مد أن كسر كوبي كرم محوها هذا الماءها آد بشعورتي إذا أوقع سنتهي وفرحت أيام دريمة يا أنا ما أنت محوها يدوينها لن أقدر كيسو هور استاجي محوها أصوب بندقي محوها هيبدأ أن لا يهاي أنيجي محوها جروب كي MGT وحان محوها كفر أحسنها هاي إن ما أنت كقيب قادني وندتك أن كوعي جليني محوها عذر كان صف مرينكا أو كورونا لده مركا والله آد محوها سي أن واحد لكرماء قانو آدن أفرح سنة آد بدو مع سنتها ما جاء السلام عليكم ورحمة الله مقعيقي وأحمد كينو كما عليك كينو كسو دواو سيدا u aragtaa xafladan maanta ka socota halkan Moi Stadium oo lagu xusay maalinta geesiyaasha xafladda maalinta geesiyaasha oo Mashujaa Day ku magac dheer aad baa ugu farxad baa muujinaa waxay u tusinaysaa inaa wadan geesi baayaan oo xiriidaan soo dhacsan magacaaga Kamaaluddin Maxamed Jehlay magacayga la yiraahdaa Kamaaluddin soo dhawow waxa ka mid tahay daawadayaasha maanta ka qayb galay maalintan lagu magac daray Mashujaa Day ama maalinta halyeeyada sidee u aragtaa maanta
maanta wallaahi waa maalin aad u weyn waa maalin alaaba lagu weyneeyo maalintii halyeeyada qaranka oo anaga maalin nagu weyn ah oo la xusaya dad u soo halgamay wadankani oo hiil iyo macnaha dhiig iyo hanti wax walba u soo bixi maanta marka waxa way farxadeeda iyo shucuubteeda lama soo koobi karo aad baan u faraxsanahay dareenkayga hadalku ma soo koobi karo aad baan u faraxsanahay waa tahay Kamaal adiga ahaan qaasatan halyeeyga waa kuma والله aniga halyeey khaas kulay ma lihi laakiin gobolka waqooyi bir ama NFD ma kala dhaha halyeey fara badan oo wadanka u soo halgamay way jiraan sida Xasan Gooro sida Chief Khalifa way tuuran yihiin halyeey fara badan oo wadankan u soo halgamay maanta xurnimada iyo maanta bashaashkan ku noolahay dad u soo halgamay oo dhiig u soo daadaya jira waa tahay bal waxa ka mid ahayd maanta dhalinyarada ka soo hormuuqday governor hortiis oo ku soo bandhigay heesooyin kala duwan waxa isleedahay maxaa kugu dhalay heesaasi wallahi horta maanta heesta aan mashraxa hortiisa ka hor qaado waxay heestii ay hoballadii waa bari nagu looqeyn oo ahayd heebad waxaas ku leedahay dhulkaada hooyo waana lama huraane hagarlii wax ugu qaba heestaas waxa igu dhaliyay oo maanta ugu qaaday mashraxa hortiisa waxa weeye heestaasi waa hees xambaarsan micno aad u weyn oo wadaniyad ah oo wadanimo ay ku dheehan tahay hatta wad arkaysan umalana markii heesta aan ku looqay dadkii inay ayaga naftinkooda ay kiceen oo wadaniyad iyo xamaasad ay qaaday marka jiibta la isla helay marka wallahi sidaan dadka aan ugu booriyo wadanimada iyo macnaha dadka inay wadankooda jecel yihiin ayaa igu dhaliyay maanta inaan ka hor qaado heestaasi waa tahay aad baad u mahadsantahay ku soo dhawow radio sahan bal magacaaga magaciidu waxa la yiraahdaa Nuno waa la yiraahdaa oo waxaan joogaa Moi Stadium Nuno ku soo dhawow sidee u aragtaa maanta xuska munaasabada maalinta halyeeyada maanta aad aan u faraxsana maadaama maanta oo Mashujaa oo note xornimada macnaha Mzee Jomo Kenyatta oo xornimadiis waagi oo noo soo dhigeen oo noo soo dhiciyeen oo habka hadda aan joogno farxadeena aad aan u faraxsanahay saad baa waxa aan arkin baa maanta ka arkayna oo governorgeena noo joogno oo dhismadeena horumarkeena isbedel baa naga dhacay Mandera aad aan u faraxsanahay dhalinyaradana shaqada wax walba aad aan u faraxsanahay wada suran lagu masohelin xurnimada haystiyo calanka wada suran lagu masohelin waxa ugu horeeyay halkan dheer u soo galay haliyadii dalkeena oo dhammaan madaxdii ka soo qayb gashay munaasabadan ayaa ugu baaqay dadweynaha ku sugan ismaamulka Mandera inay ka wada shaqeeyaan sugidda amniga ismaamulka Mandera Fuad Hussein Sahan FM Mandera